kala gadano bilow fiican baa la bilaabmay halka ay ka bilaabanteena waxaan oran karaa 11 qodob ee bilowga ugu horeeya hadeerta lagu wada hadlo 11 qodob waxaan oran karaa innaga dan inoogu jirtaa innaga 11 qodob dan inoogu jirtaa hal qodob waan oran karo iyagu u daneynaya anu ma arko 11 qodob soo qaado oo hadda inuu hor keeno qodobkaas Soomaaliland u daneynaya ee ma jiro madaxweyne shirar baa waxay ka kala dhaceen Djibouti Addis Ababa waxa looga hadlayay sidii loo dhameyn lahaa ama khilaafaadka hareeyay Soomaaliland iyo Khartoum hadda waxaad leedahay gabi ahaan waa ka soo horjeednaa qodobadii ka soo baxay shirkaasi adeer waxna anfaca kama soo bixin shirarka dhamaantood مسؤولية بنرويد ماذا مسؤولية بنرويد ماذا قضبنا نقول مهم سنة وحياة هاي مدين حرين ومركز الاسكسو حوريو لغانيا سيو مدى كل قمصور سناقي عينا مرير خاطبه هاي مستقبل كودة يلروشو ذا يويل كودة ويل كيس سيدا يتلقوا يمحاق رأي ويلان هايين الهرمر كودة يمحاق رأي اسمها دقاندودة يمحاق رأي نروشودة تين وايد من التاسع يعني وحان نقاقو عن وعن قرصونين وعن ننقرنين دريس كستا يوضا كستا وأن نكو قاري كرنو وحنا وايد نوي وعن نقاقو عنه waxaanu dadka reer Khartoum ee ku walaacaya meel hebla la aad war meel hebla waa waxaynabo hadda ragii geela ka waraabin jiray meesha la tagay meel fog maaha hadeer ay goobta fadhiyaan ragii geela ka waraabin jiray waa dul dagaaladii ka mid meesha la tagay si kasta waa lagu tagay meel walba oo ay nala gasho danta ummadda tan reer Khartoum waxaa naga go'an aan u tagno waxaa naga go'an arrin kasta oo qalabsan inaan u marro waxaa naga go'an wax kasta oo aan liqi karay inaan u liqno sababtoo ah waa ballantii aanu qaadnay waa wixii lagu dhaariyey laakiin u tegi mayno oo u mari mayno sida aad hore u barateen ama aad u arki jirteen maamulka Khartoum baa wuxuu qaatay siyaasad cad oo ah wada hadal in aanu la galno cid kasta oo daran naga dhaxayso ma aha wax maxaan ku raadayay uu madaxweynuhu si gaar ah ugu hawlan yahay arintaasi runtii labadii sano la soo dhaafay maamulka Khartoum wuxuu ku shaqeynayay hab ama hanaanka uu raacay wuxuu ahaa xoreyn iyo midayn muddadii hadeerto 6 bilood oo ugu dambeysay oo aan isleeyahay hadda 6-7 bilood waa gaadhaa waxaa muuqata in aan wax ka bedelay hab socodkii siyaasadeed ee maamul goboleedka Khartoum sabab badan awgood hadeerto socdaalkayga kani wuxuu daaran yahay isbedelkaas ku yimi socodkii maxaan ku raadsaa siyaasadeed ee Khartoum waxaan leenahay hadeerto waa dib u curashada maxaan ku raadsaa dib u curashada maamul goboleedka Khartoum tan hadeerto aanu maxaan ku raadsaa ama dibadda u maraynaa ama wada hadallada aan la leenahay Soomaaliland udhaxeeya Soomaaliland iyo Khartoum oo ka bilaabmay magaalada Caynaba la yiraahdo ku xigay Addis Ababa oo 2 jeer waqtiga tageen Djibouti laftigeeda guud ahaantood marka la isku soo xooriyo shirarka qodobadii ka soo baxay ma aanay noqonin wax mid dhal ah oo dadka reer Khartoum u cuntami kara masiirkooda iyo mustaqbalkooda iyo rabitaankooda midna wax wuxuu goyn karaa ama wuxuu noqon karaa kama ay soo madaxweyne shirar baa waxay ka kala dhaceen Djibouti
Addis Ababa waxaa looga hadlayay sidii loo dhammeyn lahaa ama khilaafaadka hareeyay Somaliland iyo Khartoum haddana waxaad leedahay gebi ahaan waan ka soo horjeednaa qodobadii ka soo baxay shirkaasi adeer waxna anfaca kama soo bixin shirarka dhammaantood